filimkani waxa uu ku bilaaban yahay jasiirad ku dhex taala magaalada Monter oo dad gaar ay degan shirkadda Pilot oo kareystay inay daryeesho garoonka golofka ee qaaska waxay ku buufinayeen bacrimi oo dambeyn taasoo ka dhalaalisa barafka inay ka dhigto cawiis mid cagaaran oo xilligii jiilaalka taasina waxay ula jeedeen si ay dadka hodanka ugu ciyaaraan golofka sanad walba maalintii xigtana magaalada ilaaliyaha amniga Dan ayaa gurigiisa keenay alaabo fara badan Danna waa qof had iyo jeer diyaariya xaaladaha ugu xun waxaana maskaxdiisa buuxiyay idaacad sheegtay shirqool kasta habeenkan Dan wuxuu ku celcelinayaa sida dab lagu iyadoo aan la adeegsan shidin balse uu ku fashil markaas ayuu qoloftii qoryaha ka furtay budadeeda taasoo sababtay qarax yar oo gubtay qayb ka mid ah sunniyihiisa garoonka gabadha ee Dan ee bateriya ayaa ka shaqeysay wiilka sidii halka meekan oo maamulaha shirkadda Pilot waxay la ciyaaraysaa lamaano hodan ah oo si u tusta sida wanaagsan ee cawiiska uu baxayo bacriminta awgeed laakiin hoosta walxaha bacriminta waa ay tiriyeen oo waxay wasaqaysan biyaha magaalada meel studio jilaa loo magacaabo Jacques ayaa caawiyay biyaha tubada taasoo inta ka hor intuusan wax soo iibsan dukaanka dhexdiisa miraha iyo qalabka dhan waxa lagu dhaqaa biyo tuba sidoo kale biyaha lagu buufiyo alaabta inaysan angagin si lama filaan ah Jacques waxa uu dareemay madax wareer balse uu iska dhintay marka uu gurigiisa imaaday ayuu arkay ilkihiisa oo cagaar isku bedeleen iyo calooshiisu si xoog ah ugu waxaysay inta uu soo raadinayay xaaskiisa musqusha wuxuuna noqday zambi dhameystiran oo qaniinay naagtiisa hilibkeeda cunay taasoo iidan isku bedeshay zambi Jacques iyo xaaskiisa waxay wada fadhiyeen tubada biyaha iyadoo indhahooda cagaar noqdeen ugu dambeynna dhaqdhaqaaqeen garoonka Michael iyo labadiis qof waxay isku noqdeen dhismo weyn balse waxay ka yaabsadeen inaysan cidna joogin sikadiis ayaa nin ugu soo orday ugu soo baxay isagoo qeylina oo dhaay meesha ka carara maxaa yeelay dadka waxa ay jireen isla markiiba koox shaqaale oo Zambi ayaa ka soo daba orday markaas ayaa soo muuqday naagta ayaa u yeertay laakiin eegii hanaaqsan ayay ku booday cunaha ayay ka qaniintay Michael iyo ninkiiba isla markiiba meesha ayay ka fogaadeen laakiin daawadihiiyo aad bay u yaabeen waxay la yaabeen Zambiyada oo soo batay meesha ay ka imaadaan ee ogaan waayay iyadoo naagtii ku sugantaa marxalada isku bedeshay Zambi labadii ninna way ordeen waxay galeen dhismo duug ah albaabkii ayay xirteen laakiin eegii ayaa si dhumaaleys u soo galay lugta ayuu ninkii ka qaniinay markaas ay u xireen qolka kale Zambiin wuxuu isku aruursanay albaabka waxayna bilaabeen inay garaacaan ninka laftiisu wuxuu isku bedelay Zambi wuxuuna bilaabay inuu Michael ka daba ordo Michael waxay ku carartay jikada iyadoo qaadatay mindi magaalada dhexdeedna Dan waxa soo wacay haweeney waayeel ah oo sheegtay in magaceedu yahay Michael waxay ku tiraahday deriska ayaa buuq sameynaya oo dagaalamaya marka ayuu Dan garaacay albaabka deriska oo ka soo muuqday isagoo hayay albaabka waa Zambi isla waqtigaasna haweeney waayeelka ahayd waxay isku bedeshay Zambi Dan wuu orday Dan wuxuu si degdeg ah ugu cararay gaarigiisa wuxuuna isku dayay inuu gargaar wacdo balse waa laga jawaabi waayay Zambiyaasha kale ayaa ka soo muuqday daaqada Dan wuxuu isku dayay inuu waco bateriya laakiin waa ay ka jawaabi waayeen iyadoo ku mashquulsan inay ka baxsato Zambiyaasha Dan aad buu u walwalacsanaa wuxuu go'aansaday inuu iska daayo shirkadda wuxuuna go'aansaday inuu hub qaato gabadhiisa u soo badbaadiyo meel u dhow wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo Andra ayaa ku dhow inuu biyaha tubada ka sameeyo caanaha walaashiis yar ee Annie laakiin hooyadiis ayaa xasuusisay inay isticmaasho biyo dhalo si ay gabadheedu u badbaadiso Andrana wiliisa macawin wuxuu jecel yahay inuu ekaado cabitaanka macaan dhawaanna hooyadiisa ay bilowday inay dareento madax wareer balse Andra uu ku eedeeyay jimicsi badan daqiiqada kadibna hooyadii isku bedeshay Zambi isku dayday inay Andra weerarto iyadoo ku daba ordaysa guriga dhexdiisa asna cabsi ayaa soo wajahday wuuna ka cararay Andra ayaa dibadda u orday oo ku dhacay dhulka laakiin hooyadii markii ay ku dhawaatay inay gaarto Dan ayaa gaarigiisa ku garaacay hooyadiina waa ay dhaawacantay balse weli waa ay nooshahay Andra waxa uu rabay inuu caawiyo laakiin Dan ayaa ka joojiyay Dan waxa uu sharaxay 911 inuu soo wici karin u jawaabi karin Dan wuxuu u sheegay inuusan u dhunto gaariga ma doonin inuu hooyadiis ka daga Andra Zambiyaasha ayaa soo badanaya Andrana ma doonin inuu hooyadiisa ka tago sidaa darteedna wuxuu lugaha ka qabtay inuu sii jeedo guriga dhammaan si degdeg ah ugu xiray albaabka markaas ayuu isku dayay inuu waco 911 laakiin waxa uu maqalay fariin cad ah oo sheegay jasiiradda in la geliyay karantiin buundada isku xirtay jasiiradda iyo dhulka weyn waxaa lagu arkay boolis magaalada ka yimid oo xanibay cidna inay soo gali karin kana bixi karin xiliyaasan hooyada isku dayday inay Aniya weerarto markaas Andran wuxuu ku jeeday inuu ku xiray musqusha hooyadii ayaa aragtay biyo qaweys oo daadanaya waxay go'aansatay inay gudaha tubada gasho dhanka kale Ana oo Oynus ayaa keenaysa Zambiyaal badan oo isku mid albaabka dibadiisa Andran waxa uu ku daboolay barkimooyin iyo buusto xitaa ciyaar weyn oo jilicsan si codka uu maqalin ugu dambeyn Zambiyaashu ay ka tageen meesha daqiiqada kadib bisada Andra ka soo gashay ilda xayawaanada laakiin si lama filaan Zambiyaash ayaa gacanta galiyay isagoo ku dhow qolka inuu Andra ka baxo markaas Zambi uu istaagay laakiin mar kale ayuu dhaqaaqay markii Andra uu soo noqday isagoo sita ushii golofka si kasta Andra ma weeran wuxuu isku dhuuntay garoonka golofka dhexdiisa bateriyaan waxay dhuumatay garaashka ugu dambeyn waxay wacday aabees uu caawiyo Dan uu yimid wuxuu arkay Zambiyaal badan banaanka balse uu la dagaalay isagoo dhowr mindiyaha ku dilay kuwa kalena dhulka ku dhaawacmay ka hor intuusan galin gudaha si degdeg markaas booliska waxay ka fogaadeen buundada maxaa yeelay ciidanka militariga ayaa soo dirsaday diyaarad ay ku duqeynayaan meelaha ugu weyn ee jasiiradda taasoo korontada goysay subaxdii dambe qofkii Ana u adeegtay waxay isku dayday inay buundada isticmaasho si ay shaqada ugu tagto laakiin waa la burburiyay Andra waxa uu duway muuqaal
Zambi iyagoo banaanka taagan waxa uu joojiyay fiirsada sharaa'idka waxa uu qabanayay wasiirka amniga ee dadweynaha ninkaasina waxa uu sharaxay in qasab ay ku noqon doonto inuu burburinayo buundada si dhibaatada loo gudoomiyo waxa uu ku dhaarinaa in xaaladaha ay gacanta ku jirto xilligaasna telefoonka Andra uu ka dhamaaday bateriya markaas ayuu dib Andra waxa uu tagay hooyadiisa waxa uu arkay daboolaha dareeraha oo cagaaran oo dhegdhegayo si lama filaan ah Ana ayaa soo gurguratay hooyadeed oo si kadiisa u soo weerartay sidaa darteed Andra wuxuu booq ku sameeyay gacanta ku riixay khudaarta ay hooyada jeceshahay si ay u soo raacdo ugu dambeyntii waxay soo gaareen qolka fadhiga hooyada waxay si shil ah ugu dhacday miiska TV taasoo keentay TV-ga ku dhacday inay ku dhimato Andra oo qalbi jabsan ayaa qasab ku noqday inuu meedkii dib u celiyo musqusha wuxuuna arkay coos badan oo ka baxayo dawacyadeeda wuxuu qaatay telefoonkeeda balse nasiib daro waa uu jaban yahay Andra waxa uu fuulay jaraanjaro ku taal albaabka hore si uu banaanka u eego waxa uu xaqiijiyay in Zambi kaliya halka uu taagan yahay qoraxda hoosteeda isagoo ka daaray goodoonka waxa uu qaatay ushi goloofka Ana oo ku riday ilmihii ka hor intuusan albaabka furin isagoo ogolaanaya Zambiiska inuu ku riday in ka soo daba ordo marka uu wadada furtay Andra waxa uu orday sida dhaqsiyaha badan dhanka kale dukaanka Zambina way ku daba socdeen albaabka dukaanka dhanka ay waxriin wuxuu ku dhow yahay inuu ku hareerismaan balse si lama filaan ah albaab ayaa furmay danna waxa uu ku jiiday gudaha danna waxa uu jeeyay halkaas tan iyo shalay waxa uu sameeyay meel yar oo ku seexdo balse qorshaha ma hayo doonyaha oo dhan waa la qaaday dawaashan waxay dilaysaa qofka qabow dartiisa awgiisa Andra waxa uu baxay inuu raadiyo caanaha ilmaha halka Ana ay ku hareeraysa eegtay si lama filaan ah Zambi ku jiro albaabka lagu xiray waa batriisa iyaduna la qaaday cudurka Zambiya Dan ayaa u muuqday inuu la kac u hayo Dan ayaa badreesiya u hasirajay in laga yaabo mustaqbalka la daaweeyo garoonka miisiin waxa uu xoojiyay albaabka wuxuu adeegsaday raadiyo si uu u xiriiro dadkiisa shirkadda kuwaas oo u sheegay in khibradaha ay socdaan isla markiina uu isugu raaco nidaamka amniga eega Zambi ayaa wili qeylinayo markaas ayuu ku celinayay isagoo riixay waxa sidoo kale la ogaaday inuu dilay saaxiibkiisa jikada dukaanka dibadiisa Dan wali ma awoodin inuu dabshido sidaa darteed Andra ayaa si fudud u adeegsaday qalab ololka marka waxay cunayeen waxay dhageysanayeen barnaamij raadiyo uu jecel yahay Dan kaasoo adeegsanaya weerarka Zambi in uu sameeyay koox degan burburiyay martida barnaamijka ayaa noqotay wasiirka amniga balse waxa uu yahay siyaasi caadi ah su'aalaha ka leexday oo ka jawaabaya ereyada guud ahaan macno badan u leeyahay markay ay jasiiradda ka baxeen Andra waxa uu garwaaqsaday in gacanta uu ku hayay mid kamid ah waxa aan taray waxa uu ku tuuray biyaha halkaas oo kalluun ku qaniyay isla markiiba isku bedelay Zambi hadda filimkeen xiisaha badan halka ayuu u eegay filmada iyo filmo ka sii xiiso badan insha Allah hadii aad cusub tahay nagu soo biir leegtan nagu dhirgay waxaan ka tagay anigoo ah Sadam Soomaali kulanka iyo kulan ka sii xiiso badan insha Allah